Mr. President muddo fara badan ayaad ciidamada ka tirsanayd askari baad ahayd markii dambana nin sarkaal ayaad noqotay marka ninka askariga ah ee Soomaaliga ah fikradda uu ka qaba waa maxay diinta Islaamka jaalle waxay la tahay taasu waa iska su'aal saad u sheegtayba shakhsi noqon karta laakiin waxaan ka leeyahay dadka kan Soomaalida oo askari iyo raaciyadba kulligeed waxa weeye islaam weeye dintiisu waa islaam muxuu ahaa diimaha kale tan dad kama qabaanin oo kuwa muxuu ahaa qadida kristaanka iyo dawladaha kale diimaha kale ma aha marka askariguna ummadiisa iyo luxariya waxaan se ku xusuusinayaa askarigu xagee ka yimid shicligu wuxuu qabaa ayuu askariguna qabaa haddaan soo koobana waa islaam baan ku leeyahay Mr. President maadaama shaqo fara badan oo culusi ay dusha ka saaran tahay maanta waqti kugu filan miyaad u haysataa caruurtaada iyo xaaskaaga waxaan filayaa inaad u wado war mas'uulka dalka ka saaran ka sokow mas'uul aaciladeed baa ku saaran familygaaga mas'uul baa ka saaran see u gudataa inaad leedahay baan qabaa hadalkaaga su'aashaada halkaas inuu socoto caruurtayda iyo xaaskayga waxaan u sheegay markii revolutionka aan samaynay waxaan u sheegay muddo dheer baan soo dhaqaalinay soona tabcahayay waxaan moodahayay sidii hab ugu wanaagsanaa inaan ku soo tabcahay waxaan ku iri maalinta war wixii maanta ka dambeeya caruurta Soomaaliyeed oo dhan ma u wada shaqaynayaan kaligeed idin shaqayn maayo marka wixii adeega baahantiin idin la diyaar baan laakiin raaja inaad isku filaataan markay u badato bishii 2 goor baan u tagaa haddii kalena oo hawsha ii didana uma tago laakiin sababteeduna waxa weeye caruurta Soomaaliyeed oo dhan inaan u shaqeeyo waa goostay iyadaanan ku shaqaynaya iyaguna waxay ka mid yihiin caruurta Soomaaliyeed aan u shaqaynayo mar badan oo hadeed danahooda oo la kayga ah khaaska ah shakhsiga ah aan hadeed wixii tala ah iyo wixii taageera aan taageerana waa jiraan laakiin waajibka iga saaran iyaga iyo kan wadanka iga saaran ilmaha Soomaaliyeed iga wada saaran waxaan fadli yeelaa midka iga saaran dadka iyo ilmaha Soomaaliyeed Mr. President intii towradu ay dhalatay xukunka aad la wareegteen shaqadaadu ay badatay mas'uuliyadda ku saaran ay badatay noloshaadii sidee bay isu bedeshay haddaan runlow noqdo jaalle waxaan oran karayaa shaqadu way igu korodhay waana igu badataan oran karayaa markaan runlow noqdo oo waxaa dhici karta inaan habeenkiina seexanin marar badan maalintiina aan ku xiriiriyo ayaa dhici karta laakiin haddana waxaan moodahayaa waxa aan u shaqaynayaa wax qiimo weyn ay yihiin dadka Soomaaliyeed iyo noloshooda iyo xornimadoodii hore u kacooda iyo wanaagooda inay tahay haddii noloshu ama dhib ha mudato ama yeenan mudanine mar haddaan hawshaas gobta ah randhiiska dambana u yeelanayo ilmaha Soomaaliyeed aan hayo dhibaatada isoo gaaraysa maba kasabaan maba gartaba maalinta un baa gudubta muxuu ahaa xisaabtaysu waxay ku fadhidaa maxaad maanta qabatay wax dadkii Soomaaliyeed wuxuu tara ma qabatay mise maalin si xun kugu dhaaftay bay ahayd aad waxaan u caroodaa markii aanan dadka Soomaaliyeed wax tara aanan maalintaas u qabanin markaasaan aad u caroodaa una shallaayaa maalintii dhaaftay oo aan soo noqon doonin caafimaadkaygu aad buu fiican yahay ilaa maadaha ku gaadhay xogayguna walow oday baa tahay la yiraahdo anigu kulliba niyada oday kama hay waxaan isleeyahay aad baad u xoog badan tahay qolo badan oo dhalinyaro markay daasho wali waa taagnaa anigu hawshan qaban hayaana ujeedada dheer iyana gunto ay tahay inay tahay mid ummadda Soomaalida wiilkii gunnimo ka furan doonta Mr. President markaadan shaqaynaynin arrimaha aad ku madadaalato ee hawbiga ku ah maxaa kamid ah wallahi mar aan shaqayn maba arkin wax aan micno lahayn mooye mar kastaba shaqa waa taala waan xusuusanahay noloshu xad ilaa xad inay soconayso intaanu noolahay dadka naga inaan iyo dalka naga u shaqeyno yaanu jecel saasana waqti badan u lahayn laakiin markii aan shaqada ku daalo si shaqada haddana aan xoog ugu sii yeelano meelaha aan aadaa waxaa ka mid ah xarunta dhexdeeda geedkan la yiraahdo big bombka aan ku madadaasho waxaa kaloo ka mid ah inaan volleyballka isagana aan
askarta iyo ama dadka saaxiibada aan la ciyaaro haddii ay ii soo gashana haddaan faras helo waa jeclahay inaan eriyo cabaar waxyaalahaas baa ka mid ah wixii ii weheliya waxaa weeye shaqada iyo sigaarkana waa ogtoo aad baan yaan u cabbaa koofigana aad baan u badsadaa Mr. President waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo shaqada aad qabato ta aad ugu jeceshahay runtii shaqada dalku ma kala leh mid la jeclaa mid gaara laakiin kolleyba anigu waxaan ugu jeclahay marka aan hayo waxa durbadiiba teegaarahaya ama wax u tarahaya dadka agoonta ah iyo dadka curyaanka oo Soomaalida oo dadka aad u liita markaasaan ugu jeclaa ama ninka aan shaqada haynin oo gaajaysan oo suuqa jooga marka aan wax la doonayo yaan ugu jeclaa sida runta shaqooyin kale aan aad u jeclay waxa weeye kuwa dadku waagi hore Soomaalida ay ka faani jirtay oo matalan beer falida inaan beerta wax ka falo taasna waa ka helaa shaqaalaha dadka inaan ku dhex jiro ama beerleyda oo muxuu ahaa shaqadaas qabanaya amaba aan la noolaado oo aan dhexdooda ku jiro oo markaan ku jiro xataa haddaan buko mar badan waa ku biskooda sida xaqiiqda Mr. President tan iyo intii ay dhalatay towradu hawlo fara badan iyo shaqo fara badan ayaad qabateen waa maxay arrimaha kuugu waaweyn ee maanta aad isleedahay maydnaan qaban Charles aan hore kuugu sheegay annagu ma moodayno wax badan inaan qabanay maxaa wacay nin aan de abaalba kaga rabnay ma jiro waajibna saaraabay ahayd noomana ay ogolaan karin wax weyn inaan qabanno dhaqaalaha dalku nooma ogolaan karin iyo sabab badan oo kaleeto oo markii dal uu ku dhaqmaayo horay isugu dhaqmi jiray nidaam aan muxuu ahaa maslaxadiisa haynin markii laga soo baxo oo nidaamka cusub aan la gaarin waad garan karaysaa wuxuu socodkoodu sidii la rabay ma noqdaanin marka saasaanan u qabin wax weyn inaan qabanay laakiin waxaanu isleenahay marba kolley wixii idin soo gaara suga waxaanan qabnaa waxa Soomaaliya u baahan tahay wax fara badan inay yihiin oo in la qabtaa xaq ay tahay dhaqaalaha wax badan bay u baahan tahay in laga qabto tacliinta wax badan bay u baahan tahay in laga qabto caafimaadka wax badan bay u baahan tahay in laga qabto xagga dhismada aadamanimada sharafkiisa iyo gobonimadiisa wax badan bay u baahan tahay in la qabto marka jaalle inta caruur Soomaaliyeed ay gaajo u dhimanayso ama qof Soomaaliyeed uu cudur u dhimanhayo sideeba aan marka ugu marayn karaynaa inaan wax qabanay sideebaan ugu marayn karaynaa wax badan oo aan qabanaa inay noo dhimanayn inta kuwa badan oo Soomaaliyeed ay guun yihiin sideebaan ugu qaadan karnaa inaan wax qabanay sideebaan ugu qaadan karnaa wax badan oo aan qabanaa inay noo dhimanayn waxaanu leenahay tira kuma gaaro waxa in la qabtaa ay dhiman tahay aad bay u ballaaran yihiin oo aanu isleenahay ad qabateen balse annaga dareen waxa weeye maalin walba meeshii aan qabanaa waa inay meel sugan noqotaa ee wax dhalanteeda waa inay noqon waxaanu qaban karno inaan qabanno waxaanan qaban karinna inaanan u dhuun taagin waqti aan munaasib ahayn anagoon gaarin waqtiga munaasibka mid walba inaan sugno ayay tahay taladanadu Mr. President waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan dalalka dibadda oo qaarkood muddo fara badan ay dalalka dibadda ku dhaqnaayeen oo markii ugu horeysay maanta codkaaga maqlaya Mr. President fariinta aad dadka maanta gaarsiinaysaa waa maxay waxaan gaarsiinayaa ummad walba adduunka joogta taariikh bay leedahay dadka Soomaalida oo dibadda jooga waxaan gaarsiinayaa aan una dirayaa waxa weeye xornimada Soomaaliyeed markii ay isku bilowday inay baadi goobto u halganto dadka dibadda jooga qayb weyn bay ka qaateen waxayna uga qaateen si gobonnimo ah waxay uga qaateen xoolahooda waxay uga qaateen codkooda waxay uga qaateen in ay istaageeraan isjeclaadaan inay ka soo biskoodaan amaba ay ka fogaadaan wixii sabab u noqon karay oo firdhinayay taasoo ay ka mid tahay qabyaaladda iyo xasadka iyo nabcaanta iyo eed oo haysiga door weyn bay ka ciyaareen markii loo halgamayay xornimo doonka Soomaaliyeed ayaan darro waxa ahayd markii xornimadii la helay sidii maamulkuba halka uga xumaaday
iyagana maamulkii inuu ka xumaaday marka wax walba waxaan leeyahay taariikh waa yeeleeyeen taariikhdoodii hore waa fiicnayeen waxaan kula talinayaa taariikhdoodii hore to fiicneed inay dib ugu sii noqdaan sida hadday xusuusan yihiin maalintii horreysay aanu iri meeshii wadaninimada aan kaga tagnay ayaanu ka qaadayna wadaninimada markaanu u diriraynay Soomaali mid bay ahayd calankeeda inay heshay doonaysay madaxeeduna xornimo uu u banaanaado adoonnimo ay ka dulkacdo marka tilaabadii labaad oo ahayd dhaqaalahooda iyo tacliintooda iyo caafimaadkooda inay dhisaan yaa laga tegay annagu tiibaan ka bilaabaynaa waaniga iri markaasaan xarigii hore oo saas dhalay xornimada dhalay iyo midka kan xornimadii kaamil yeelahaya ayaan isku guntaynaa baan iri waagaas iyagana waxaan weydiisanay inay xarigii meesha isaga guntaaniin oo gobonnimada meesha uga halgami jireen ay uga halgamaan qofku wuxuu ku sharaf leeyahay dalkiisa haddii uusan dalkiisa aaminsanayn oo uusan daafacaynin oo uusan ku dhaadanaynin oo uusan ku dhaaranaynin wax xushmadaynaya ma jiraan ay oo kale tayuu la mid yahay duurka wareegaya waxaanu leenahay meeshiinni ka qabsada saad awalba ugu faani jirteen Soomaali baana faankaasuna mid runa suu u noqdo waxtar dalkiina u ahaada xataa khaarijka dad joogtaan waxaanu leenahay hadda anagu xoolo noo soo dira malihin oo ilaah mahadiis waxaanu leenahay kulli waa dadaalayna laakiin waxaanu leenahay qiirada wadaniga ah ha idinku weynaato taas baa gobonimadiina ku jirtay sida lagu gartaa inay kugu weynta in kale waxa weeye markaad walaalka Soomaaliga aad jeclaato oo aad taageerto oo aad la heshiiso oo hadduu wax ka qabay aad cafido oo aad ku tacabto xataa isagu hadduu garaad xun yahay wata meelaha lagu gartaa waxa lagu gartaa markaad ka dhidhido markii magaca Soomaalida wax loo dhimahayo waxa lagu gartaa si fool xun adigu inaadan u soconin markaad khaarijka joogto waxyaalaha lagu gartaa waxa weeye itixaad iyo urur inay leeyihiin dadka meeshaas wada joogo Soomaalida intii meel joogtaaba dad isjecel oo urursan inay yihiin oo kooda liita ay taageeraan oo qaaraamaan oo wax u ururiyaan oo haddii uu baahan yahay oo shaqo haysan dhoofiyaan oo dalkiisa u soo dhoofiyaan ilaa kulliba meesha aan fool xumadiisa ninna uusan wax ku oran karin waa dalkiisa hooye kulliba dalkaaga saan u sheegay dhibaato kasto aad ku qabto oo naqalkaaga gudihiisii marka dad badan hadda waxa dhici karta duurka wareega oo aan shaqo haysanin oo lagu dilo oo lagu xumeeyo lagu hayaanadeeyo iyagana waxaan leenahay dalkiina ama shaqo ka hela ama shaqo ka helina kulliba kiini way waxaan leenahay haddii aad shaqo weydan soo noqdo dalkiina imaado oo u imaada kulliba shaqadii taala nasiibkaaga aad ka ordaysa ma aha markii la oran jiray yaa taqaana maanta waxay joogtaa Soomaali mar haddaa tahay maxaad qabsan kartaa wixii shaqo marba soo baxa oo si xaqaya loogu qaybiyo dadka shaqada anigu midaas baan u dirayaa waxaan u dirayaa dalkiinu mar walbaba adinka baa iska leh haddaan soo koobo waxaan leeyahay dadka Soomaalida oo banaanka joogo dhowrta sharafkiina Soomaalinimada ah una shaqeeya dalkiina meel kasto aad joogtaan sida ummadaha kaleba ay dalkooda ugu shaqeeyaan مثلا kuwa nala jooga ajnabiga kuwa nala jooga ajnabiga aan inta dhibta weyn nagu haysa kuwaas ajnabiga nala jooga way dhibkeen nagu hayaan maxaa waay dalkoodii iyo dadkoodii u shaqeeyaan boqol wax kasta daan siin anaga noo shaqeyn maayaan xaqiiqdii wax dhalanteeda hayna tusayaan laakiin xaqiiqdii dalkooda ay u shaqeeyaan marka maxaa u diiday kan kale to Soomaalida banaanka jooga sida kan uu yeelayo inuu isma yeelo taa baan ka rajaynaynaa marka inay ficilkooda halka uu gaaro oo ay ka qabsadaan saan mar hore u sheegay inay dhisaan dalkooda si ay iyagu dhowrmo iyo iyo tixgelisay ku helaan waxaanan u farahayaa salaam ballaaran oo kaliya laab ah oo dadkii Soomaaliyeed ka wada socda oo qaraabadooda ka socda oo waalidkood ka socda ayaan u farahayaa dalkooduna waa sugahayaa annaguna waa uga sii shaqaynaynaa sida iyagu u jeclaan lahaayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.